fanaanada Shireen Cabdiwahaab ee u dhalatay dalka Masar ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay qabsatay baraha bulshada khaasatan dadka ku hadla afka Carabiga ama fankeeda dhageysta. Soomaalida ayaa kamid ah dadka sida gaarka ah ugu xidhnaa xaaladda Shireen oo waxaad arkaysaa iyadoo barihii bulshada ee Soomaalida hadalhaynteedu hal mar qabsatay. Haddaba maxaa ay tahay sababta keentay hadalhaynta fanaanadani reer Masar? Soo dhaw daawade follow the page-keenan dhanka YouTube-kana booqo oo subscribe dheh. Shireen Cabdiwahaab waxay ka mid tahay fanaaniinta badanaa baraha bulshada noloshooda ku soo noqnoqoto. Waliba sanadkii u dambeeyay kolba waxay ku soo noqnoqonaysay inay qabsato baraha bulshada xataa iyadoo aan ku talagelin. Mar ay noqoto khilaafkeeda iyo ninkeeda, furitaankoodii inuu damcay lacagteeda inuu kala wareego, iyo waliba markii ay si kadiisa shaashadaha looga arkay iyadoo dhukuratay. Dadkiina cabsi gelisay oo su'aalo badan dhalisay. Maxanuun baa helay mise style bay ka dayday. Mar kale ayay ku soo noqotay inay noqoto shayga loogu hadalhaynta badan yahay. Maxaa ku soo celiyay carabka dadka? miyay xanuunsanaysaa mise waxay noqotay qof caadaysta oo draagiska isticmaala? Kadib markii la geeyay dhakhtarka cilaajka waxay cadeeyeen saraakiisha ciidanka booliska ee dalka Masar inay Shireen Cabdiwahaab dacwad ay ka soo gudbisay ama ku soo ogtay walaalkeed iyo qaar kale oo ay sheegtay inay gurigeeda dhexdiisa ku soo weerareen qasabna ay ku geeyeen dhakhtarka waalida ama cilaajka kadib markuu khilaaf soo dhex galay. Walaalkeed Maxamed Cabdiwahaab waxa uu gabi ahaanba diiday eedeymaha ay walaashii dusha kaga tuurayso, waxana uu yiri oo isku difaac walaashi daraagis isticmaasho waliba la isticmaasho ninkeedii hore ee furay isla markaana ay daryeel u baahan tahay. Hase ahaatee dhowr bilood ka hor waxay fanaanadu afkeeda ka qirtay xiriirkii adkaa ee qalafsanaayay ka dhaxeeyay ninkeedii hore sidii ay iskula kadeednaayeen heer dhibka iyo barasharku ku hayay u gaarsiiyay in xataa timihii ay iska xirto. Waxaase ay hadalkeeda ku soo gabagabaysay inuu rabay inuu la daadago oo waxba yahayn ka dhigo, balse ay tahay qof xoog badan oo caqabad kasta idamka alle kaga gudubta. tanna ka soo gudubtay Dr. Nabil Abdul Maqsuud oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta iyo la tacaalida dadka draagiska isticmaala ahna dhakhtarka imika fanaanadani gacanta ku haya. Waxa uu dhanka commentiska ku yiri waa ay fiican tahay Shireen bulshadeedana way u soo laaban doontaa dhawaan.